ragga suuq weynaa mid inuu horeeyay ahayd maqribka bacdiyeen ahayd xuraa maqribka bacdi waay ana islaasaan waay wax culays ay malahan in waxaana waxa waay wax aan asaas aan u badneen hadii la fiirina xaqiiq waayo wax koo 2 3 ilaa 10 aan dhaano wax la saheysanayo maaha isla marmaas waxa soo dhagdhag markay dhacaan inaad baxdid oo aadna ama lagaala hormaro mis wax ay kugu dhacaan mis ina meesha aad ka baxdid oo nin banaankiis ka taagan aad tahay saas ahaan uu sheegay marka aan qiimeeyaha taafiir asdaay waxa 7 taal isla ma gaaray qofkan ilaa qof wax ugu ma aan soo socotay soo koristagto dhagdhag ay kala dhamaataan waxa uu kaga duwanaa eedeysanayaasha kale inuu ku tababartay gudaha Muqdisho isaga oo daawan jiray dilalka ay geysanayaan dhagarqabayaasha kale laakiin waxa uu qirsan yahay in shaqadiisa ay ahayd dabagalka xilligii uu ku noolaa Diisoor TV-ga dawladda ayaa fursad u helay muuqa Shucayb oo magaciisa afgarashadu yahay Axmed waxa uu ka sheekeynayaa mid kamid ah ficiladii ugu halista badnaa ee uu galay intii uu ka shaqeynayay dilalka gaadmada ah Dhibana Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamid ah ciidamada xoogga dalka sidoo kalena ahaa mid kamid ah markaatiyaashii maxkamadda la hor keenay ayay go'aansadeen inay nolosha dhaafiyaan Shucayb iyo Ilkaas oo maqana ah waxyaabaha fadhiga looga diiwaan galiyay Dhibana Cabdiraxmaan ayaa kamid ah in ay dhaheen waa maalintii kuugu dambeysay nolosha dunida kuuguna horeysay ilinka aqiro 14 bishii shanaad 2018 xilligaasi oo ay dhaawac u geysteen waa kan Shucayb oo ka sheekeynaya qatartii uu kala kulmay mid kamid ah ilaalada qaranka soo aadnay gacanta hor anaa lahaa laba xabba barti ka dhacdaniyo teeteeda watay dhay markii laba xabba dhacday ay isbalaqdano jab waa joogsatay ninkii marka saanu kursi ugu fadhiyay waxaan filaa horta xabadahaas inaysan horta meel macaan uga dhicin haday meel halis ay ku dhici lahayn waxa waay wax un la jiri lahaa mugtaa laakiin si meel oo hadda la leeyahay oo xanuun mise dhanaan ay uga ma dhicin bas ilaa amarkiisu markii aan saas uga baxay saas soo galay markii saas soo galay inuu iskaga leexday oo ka cashay 300 400 500 ma xasuustay uu asna riday ninkii marka ilaa amarkiisu asna wax uu waa gaareen koodhe markii uu ilkaas ku riday wax way gaareen birtii soo qabsaday marka aniga meesha taagana mugta waxa ka war helay daaqad baawurta oo taagna dam ka war helay xabad inay meelaha ma iga martay meesha ma martay ma aqaan macna wixii ku sigay wixii kale waa fahmay mugta weeyna dareemaa kadib u booday markii wiilka darwalku wuxuu u socday dhinacaas u socday wuxuu isla ninkan waa toosan yihiin marka soo gal baawurka la wado saasoo aan darwal mi ilkaacsan darwalka ma wiilka darwalka marka saasoo nool jiraa بس باورك لقاده محمد عثمان أحمد عمر ومقاعدي ساف قرشدو يهين عبد ولي التمية باكستان ayaa inooga sheekeynaya kaarintiisa shaqo waxa ay keenay ilkaas wuxuu uu keenay boole marna kawaanka marna dhankaani daabla oo suuqa qandalka oo soo baxay mooto feekona mootada waa iska dhigi bayantan sidii oo mootooyinka loo aruuriyay عادي موتديو تاكسي واحد عادي راعي جير لا تساي كيني جير marka iyaga siyana masaajidkan tawakamadu iyaga ku siin jir ay soo raaci jireen shaqada markay soo dhamaatana aan ka soo qaado asaga u siin jir Ismaaciil Maxamed Aways oo magaciisa afgarashadu yahay Yaxi waxa uu sheegay in dhammaan ay fashilmeen dilal qorsheysan ee uu qayb ka noqon lahaa idan markii la helo kadib waa la waanay maalinka dambeysay ugu dambeysay waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii markaa tagnay oo irtijaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyaal rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii ka tibeen kadib anaga wax ka soo tagnay oo ka soo cararnay meeshii xoogaa yar buuq yar ka meeshii wax ka soo kala cararnay kadibna anagoo carreena ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galnay saddexda eedeysana ayaa ka wada sinaa sheegida magaca Ilkaas oo ah maamulka qarsoon ee ka hoos shaqeynayay waxa looga fadhiyaa hay'adaha amniga in ay hor keenaan cadaaladda Saadaq Cabdi Jabbaar Umar Xuseen waxa la soo xiray sanadihii 2015 waxa uu iska diiday dhammaan eedaha loo jeediyay xilligaas laakiin waxa la soo qabtay isagoo faraha dhiig ku leh gacantana weli ku haysta bistooladii uu nolosha ugu aqoonsaday marxuum XW xooga Maxamuud Xasan Ibraahim 31 bishii saddexaad 2019 todobadii iyo 11 bishan ayaa loo kala fariistay fadhiyada dacwadda loo haysta 4 eedeysane
waxaana xilli hore maalintan xukunka ay ka soo saareen heerka koowaad ee cadaaladda u akhriyey warbaahinta guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 4 eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay: 1 dembiile shabaab shucayb cabdulaahi maxamed dil toogasho ah. 2 dembiile shabaab saadiq cabdijabbaar cumar dil toogasho ah. 3 dembiile shabaab maxamed cismaan axmed xabsi daa'in. 4 dembiile shabaab ismaaciil maxamed aways xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabilaahi towfiiq. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.